magaalada Stavanger ee dalka Norway ayaa lagu qabtay dabaaldeg aad u baaxad weyn oo ay ka qayb galeen qoyska boqortooyada Norway oo lagu xusayay 200 sano guuradii ka soo wareegatay muhaajiriintii ugu horeysay ee reer Norway kuwa oo 4 July 1825 ka sharaacday magaalada Stavanger iyaga oo ku sii jeeday dalkaasi Mareykanka gaar ahaan magaalada New York oo ay gaareen bishii Oktoobar 9keedii safarka dheer oo ay kaga ambabaxeen magaalada Stavanger iyaga oo ku sii jeeda magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka ay ku dhasheen ilaa iyo 53 caruur ah intii ay wadada rafaadka badan ku sii jireen laga soo bilaabo sanadka 1825 ilaa iyo maanta oo aynu joogno 2025 July ayaa waxa ka soo wareegatay 200 oo sano muhaajiriintii ugu horeysay ee Norway ka ambabaxay muddada 200 oo sano ayaa lagu soo waramayaa in xiriir xoogan uu dhaxmaray wadamada Mareykanka iyo Norway oo ay udub dhaxaad u yihiin muhaajiriinta Norwejiga ee u qaxay dalkaasi Mareykanka boqolkii sano ee ugu horeysay ee ka soo wareegatay 1825 ayaa la soo warinayaa in Norwejiga u qaxay dalka Mareykanka ay gaarayeen ilaa iyo 900 oo kun oo Norweji ah waxaana hadda lagu soo waramayaa in tirada Norwejiga ee Mareykanka ah ee ku sugan dalkaasi Mareykanka ee haysta dhalashada dalkaasi ay ka tiro badan yihiin tirada Norwejiga ee ku sugan dalka Norway xiriirka ka dhaxeeyo Mareykanka iyo Norway ayaa waxa udub dhaxaad iyo kaalin mug iyo miisaan la ka qaato muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Norway waxa uuna xiriirkoodu gaarayaa meel aad u sareyso marka loo eego dalalka kale waxaana hadda taagan walaac aad u xoogan oo ku saabsan canshuuraha xad-dhaafka ah ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogaya Yurub oo ay Norway ka mid tahay oo ay Norway iyo Norwejigaba walaac xoogan ka muujinayaan waxaana la filayaa ama la isleeyahay muwaadiniinta tirada badan ee Norwejiga ah in ay xaaladaasi iyagu soo faragelin karaan waxna ka qaban karaan waxaa jira walaac xoogan oo ku saabsan in waxyeelo xiriirka aadka u xoogan ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo Norway ay ka soo gaarto canshuuraha xad-dhaafka ah ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogayo Yurub iyo Norway halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine